Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan khiyaarta ku xiran barayga bulshada meel kasta oo joogtiin. Waxaan idinku soo dhaweynayaa gacmo furan. Muuqaalkan waxa uu hordhac u yahay muuqaalo taxane ah oo aan kaga hadli doono box culvert, construction of box culvert. Yacni processka loo maro markii la dhisayo box culvert. Culvertyada ayaga kala gedisan. Insha Allah taala mid ayaa idinku sheegi doonaa. Haddase process of construction of box culvert ayaan ka duubi doonaa dhowr muuqaal ay soo socota insha Allah. Marka saddex qodob ayaan sheegi doonaa hadda: excavation iyo qodobka koowaad ah rockfill iyo blinding ayaan insha Allah taala kusoo bandhigi doonaa muuqaalkan kooban. Marka waa xiisad practical ah oo ugu talagalay ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay la socdaan. Excavation marka cagaftii hadda ka baxday. Excavation waa qodaal, in la qodo meesha laga dhisi lahaa box culvertiga. Qodaalka marka wakaas sidaas ayuu u saxan yahay. Alignment-kiisa surveys-ka ayaa sameeyay setting out-ka. Marka setting out-ka la sameeyo kadib ayaa cagaftii imaanaysaa. Cagaftii waa hadda qoday, materialka sirka waa laga saari doonaa ciidda sirta ku hartay. Marka qodobka koowaad maxaa waaye excavation. Waxaan rajeynayaa ardayda Soomaaliyeed inay ila socon doonaan. Excavation-ka markuu dhamaado rockfill waxa la ku xigo dhagaxii la soo rockfill gareeyay. Muuqaalka ma duubin sorry laakiin sawirro ayaa idin la wadaagayaa markii rockfill ka sameeyay kadib. Waa kan hadda rockfill-ki waa dhamaaday, isbaagaas loo xiray. Waa rockfill yani si fiican baa loo compact gareeyay. Wakaas compaction-kiisu si fiican baa loo sameeyay. Kadib marka qodobka ugu soo xigo ama qodobka saddexaad waxaa weeyo blinding. Insha Allah taala waa ujeediin. Waa kana shubkii casting concrete for blinding. Markii rockfill-ka la soo sameeyay, shub yar oo khafiif ah oo mangaroona ah oo bilaa bir ah ayaa la soo dhigayaa. Marka shubkaas waa 50 mm. Shubkaas markii la soo dhigo casting concrete for blinding waa qodobka saddexaad. Marka shubkan uu noo dhamaado kadib ayaa insha Allah taala muuqaalada ku xigana aan sii wadan doonaa. Marka waxaan ka codsanayaa in ardayda Soomaaliyeed ay ila socdaan from A to Z. Yacni maalinta aan dhamayno muuqaaladan waxaan rabaa arday walba inuu fahamsan yahay qaabka loo dhiso. Waxaa loo yaqaano cross culvert qaabka loo dhiso. Arday kasta macluumaad fiican uu ka haysto. Marka please si fiican ila socda ayaan leeyahay ardayda Soomaaliyeed. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkayga. Waa kan hadda shubkii ayaa sidaas noogu socdo. Finishing work ayaa hadda la sameeyay. Waa dhammaystiray. Marka isbaagadaas ayaa u xiran. Marka inta ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. What?